رئيسul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo xalay saqdi dhexe war saxaafeed soo saaray ayaa cadeeyay mowqifka xukuumaddiisa ee qulqulintooyinka ka soo cusboonaaday deegaanada maamulka Galmudug. war saxaafeedka ka soo baxay ra'yisul wasaare Roble waxa ugu muhiimsanaa qodobada 3, 4 iyo 6. qodobadaas waxaa lagu cadeeyay mowqifka ra'yisul wasaaraha iyo xukuumadda uu hogaamiyo waxaana lagu yiri Galmudug waxaa ka jirta dowlad goboleed haysata sharciyad buuxda iyada ayaana mas'uul ka ah amniga deegaanada Galmudug. sidaas awgeed waa in laga dheeraadaa tallaab kasta oo u muuqata mid lagu carqaladeynayo Galmudug. cid kasta oo qabta tabasho waa inay u martaa xalka dariiq nabadeed waana in la joojiyaa abaabulka hubaysan iyo weerarada baalmarsan sharciga taasoo halis ku ah xasiloonida nidaamka iyo kala dambeynta. sidoo kale qodobka ugu dambeeya war saxaafeedka ka soo baxay ra'yisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra'yisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa dhammaan reer Galmudug mas'uul iyo shacabba inay gacmaha isqabsadaan una midoobaan dagaalka argagixisada al-shabaab iyo cid kasta oo halis ku ah xasiloonida dawladnimada iyo horumarka Galmudug. warka qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska ra'yisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Galmudug uu dib u xasuusiyay mowqif la'aanta madaxweynaha maamulka Galmudug markii loo eego khilaafka Villa Soomaaliya. madaxweyne Qorqor waxa uu muddo ka badan bil u awoodi waayay inuu cadeeyo mowqifkiisa khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'yisul wasaare Roble si la mid ah maamulada Jubbaland iyo Puntland. halka uu Maxamed Xuseen Roble muddo saacadaha uu ku cadeeyay mowqifkiisa kadib markii ahlu sunna ay qabsadeen magaalooyinka Gurceel iyo Matabaan. siyaasiyiin ee qayb ka yihiin madaxda gobolada mucaaradka iyo sidoo kale ehelada Qorqor waxay hogaamiyaha Galmudug kala qoosteen inuu cadeeyo halka uu ka taagan yahay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'yisul wasaare Roble. dad badan ayaa arrintan ku tilmaamay in Qorqor uu garab istaag iyo hiilo ka helay qofkii uu dhabar jibiyay. wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Galmudug waxaa maanta degan xaaladda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya oo shalay ku jirtay xaalad jahwareer ah. maamulka Galmudug ayaa Gurceel ka joojiyay diyaaradihii ka degi lahaa garoonka magaaladaas lamana shaacin sababta rasmiga ah balse waxaa jira warar tilmaamaya in diyaaradaha looga joojiyay sababo la xiriira amnigooda. ahlu sunna xalay waxay ku yeetay magaalada Gurceel waxayna ka samaysatay difaacyo waaweyn waxaana la sheegay in dadka deegaanka ay ka dalbatay garab istaag haddii uu weerar kaga yimaado dhinaca Galmudug. dad goobjoogiyaal ah oo ku sugan deegaanka Ceeldheere una dhaxeeya magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa soo warinaya in ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay ka baxeen deegaankaas ilaa haddana aysan soo gaarin kuwa ahlu sunna oo haawanayo ama aysan cidna ku sugnayn. hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Qorqor ayaa xalay gudoomiyay shir ka dhacay madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb kaasoo looga arrinsaday sidii loo wajihi lahaa xaaladda amni ee ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkiisa. Qorqor xubnihii shirka kala qayb galay waxay u soo jeediyeen in fursad la siiyo dadaalada nabadeed oo ay wadaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka mid yahay Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur oo aad looga tixgeliyo deegaanada Galmudug. dawladda Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay Galmudug ka dejisay ciidamo ka tirsan Haramcad iyo Gorgor kuwaasoo la rabo in ay Galmudug dib ugu soo celiyaan gacan ku haynta magaalada muhiimka ah ee Gurceel iyo sidoo kale nabadgelyada deegaanada ku teedsan. dhinacyo kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya xubnaha mucaaradka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay gobolada dhexe ee Soomaaliya. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hogaaminaya ciidamada qabsada Gurceel ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono wax uu ku sheegay qawaariij isagoo dawladda iyo Galmudug ku eedeeyay inay weerar ku yihiin culimada ahlu sunna halkii ay la dagaalami lahayn al-shabaab. hoggaanka ahlu sunna inkastoo ay sheegeen inay la dagaalamayaan qawaariij haddana waxay weerar ku yihiin deegaanadii ay dawladda iyo Galmudug ku sugnaayeen.